doorashadii la xiriirta kurgalid xaaladda dhabta ah ee magaaladan waa magaalo qadiimi ah magaalo taariikhi ah waa magaalo ku dheer Puntland magaaladan waxaa nasiib darro qabsaday mar aan fogeyn nimanka la yidhahdo Daacish sharwadayaasha ah aada u halakayay dadkii meeshan deganaa aada u dhibaateeyey dadku dhib badan kala kulmeen waa laga xoreeyey ciidamadii geesiyaasha Puntland ayaa ka xoreeyey wax la dilay iyo wax la qabto iyo wax hadda fakaday oo meelahaas u carabay weeye marka dadkii in loo yimaado oo la ogaado baahiyahooda iyo dhibtii gaartay way muhiimadda ugu weynaan hadda magaalada dagaal kama dhicin marka laga reebo meel 50 iyo 3 kilomitir u jirta dad kamida lamiinkana lama qaban marka xageeba isleedahay inay ku sugan yihiin madaxweyne magaalada waa la qabtay islaamiyiin badan waa la qabtay waa haynaa qaar soo dhiibay iyo qaar la qabtay intaba waa ay jiraan magaalada dabcan markii ay arkeen inaysan ku joogi karin oo aysan haysan karin ayay ka baxeen oo ka carareen laakiin meelaha ka dheereen magaalada ayaa dagaalla ka dhaceen dadba qaar badan ayaha lagu laayay hub iyo saanad iyo raashin iyo qalab kale agab kale way markii horeba in badan oo kamid ka balaqaysteen magaalada ayaa laga soo qabtay iyo gawaari dadkii meesha yimido waad aragtay saxaafada ayaa loo soo bandhigay wixii laga qabtay iyo qaabkii ciidamada ay u shaqeeyeen laakiin waxa ugu weyn waxa weeye magaalada markay yimaadeen ninkaan dib badan bay geysteen galabta maanta waxaan soo maray magaalada maantaan soo maray magaalada qaybo badan oo kamid a waxaa soo maray MCH-kii magaalada caafimaadka oo ay daawadii ay burburiyeen talaagadii ay xabad la dhaceen solarkii saaraa oo nalka ay xabadeeyeen oo ay baadiiyeen nimankaa marka niman dib iyo dhibaato inay geystaan mooye wax wanaag inaba aan lagu arag weeye meelo kale oo badan oo kale waa ay bilaqaysteen stationkii booliiska waa tagay waad aragtay oo albaabadii kala baxeen oo ay burburiyeen marka dhibtaas badan ayay magaalada u geysteen dadku ayay ka taxay dad badan ay dhibaateeyeen marka in la ogaado magaalada dib loogu soo laabto dadka dib loo soo celiyo iskuuladii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo dib loo furo dadkii nolosha caadiga ahayd magaalada ay kusoo laabato madaxweyne magaalada waxaa muuqata miradii ganacsiga iyo guryihii deegaankaba in lagu soo noqday laakiin koobihii waxbarashada iyo caafimaadka ayaa maqan marka maxaa idinka qorsheysa waa waajib waana siinay amar wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka iyo qeybihii kale ee arrimaha bulshada iyo amnigaba in ay magaalada yimaadaan magaalada ciidan baa joogi doona ciidan kale oo rijaalna dadba ayaa ina soo degi doona magaalada waxaan rabnaa magaalo istaraatiijiga weeye magaalada meelaha ugu kheyraadka badan dadkay kamid tahay oo dee kalluunka ugu badan ee Puntland meelaha uu kasoo baxo ayay kamid tahay magaalo wax soo saar fiican le weeye magaalo ganacsi oo dadkeeda ay xadaalad fiican leeyihiin weeye waxaan rabnaa intaas oo dhan magaalada in laga faa'iideeyo oo magaalada magaalo nolol leh ay noqoto amniga ah insha allah madaxweyne ugu dambeyntii magaalada boosas wax ka dhacay dilal agaasimihi madaxtooyada taliya ku-xigeenka ciidanka xeraaliyii guud dadkii falkan ka dambeeyay ciidamada booliis ama ammaanku gacanta ma kusoo dhigeen rajooyin badan ayaa hadda mar raba inaan ka warramo ka hordhaco arrintan markaan u sheego waxa weeye boosas magaalo amni ah weeye waxaa adduunka meelaha kale oo hadda aan soo aragnay ka dhaca kama dhacan sababta loo qariisanayo oo dadka ooyaan waxay magaalo amnigeed waxay ka dhacaan dabca dadku waxay leeyihiin waxbaa dhacay laakiin magaalo maalba qarax ka dhacayo ama dil ka dhacayo ama shiba ka dhacayaan dee lagama hadlo waxa boosas amni weeye ciidamaduna waa shaqaynayaan hawsha iyadaana waxaan rajaynaya in lagu guuleysan doono aan ka hor dhacada ma rabo laakiin si fiican baan leenahay dadkii dhibkaa geystay in lasoo qabto amniga maxkamada la kor keeno waajibaadka la mariyo insha allah ugu dambeyntii waxaad sheegtay in islaamiyiinta meelo ka baxsan markii magaalada Qandala la qabtay uu dagaal ku dhex maray ciidamada Puntland ma ka baxeen mise imika way joogaan meelo ay ku harsan yihiin horta ereyga islaamiyiin yaa maqaranay nimankani waa hadday usoo dhawaadaan khawaarijiin weeye waa dad aan islaamnimo shaqo ku lahayn weeye dib islaamna u taagan dad inay gowracaan dad inay laayaan dad inay dhibaateeyaan dadka magaalada biyihii ka gooyey oo amsijadii sartay oo ama gubay ama yani saas u dirlaqaystay nolol aan cidna u ogolayn weeye marka islaamnimo diinta islaamka magac xun ayay
jiideen mooyaane wax wanaag oo ay sameeyeen ma jirto wax khayraadoo ay ummadda u leeyihiinna ma jirto loo wareegsan weeye ilaahay waxaan ka rajeynaya inuu soo hanuuniyo oo wanaagga tuso marka in badan oo ka dhigan waa dhibato la socotaa qaarna waana qabtay qaarna waa isdhiibeenba aabada way soo dhiibaan in badan oo kamid hadda ilaa tobanigana maranaya in isdhiibtay in badan oo kalena waa rajeynaynaa inay isu soo dhiibaan oo ciidamada soo galaan marka nimankaasi niman sii joogi doona Puntland ama kusii noolaan doona ma noqon doona insha allah